وحوي تعسي إنه يعني التعسي إنه dadkeenii dhintay waalidkood jaamacaddii iyo dadweynihii Soomaaliyeed ee baxay intaba iyo guud ahaan dalkoo dhan inaynu tacsiyeeyno waxaan isleeyahay dad baa geystay ficilkaas kuwa ficilkaa geystay orda Soomaali ma aha hadday Soomaali yihiin walaaladooda dhalinyarada ah ma ay xasuuqeen muslim ma aha diinta muslimku waa diin nabadeed oo naxariis leh ma aha wadaniyiin ma aha ama siyaasiyiin ma aha oo hadday siyaasad u socdaan ma ay laayeen dadweynaha aan waxba galabsan dadka kolkaasi ficilkaa geystay saddexdaa midna maaha waxay yihiin waa waxun oon ilaahay ka baryayno inuu inaga qabto waxaan rabaa ereyadii halka laga soo jeediyey dadkii soo jeediyey ama wasiiradii ha ahaadaan ama guddoomiyihii jaamacadda banaadir ee u horreeyay ha ahaado ama ha ahaado dhakhtarkeenna guud ahaan waxay inoo sheegeen waxaan dhacay 2009 baa ugu horreysay ma odhanayo waxa ugu dambeysay tii 28kii dhacday maantadan waxa la leeyahay qarax baa dhacay laakiin wuxuu geystay ma hayn muddada intaa leeg xasuuqa ku waawaday waxaan filayaa sidii uu sheegay wasiir ku-xigeenka boostadu waa kuwo inagu dhex jira maxaa daman idinka dhigay maxaa dulliga idin baday dareenkii maxaa la tegay sow ma aha inaynu garanno kuwa dulliga qaba ee sidaa inoo xasuuqaya inay dhici karto inay inaga inagu dhex jiraan oy xaafadaheenna ku jiraan oo ay kolkaa yacni inagoon dareemaynin inay sidaa inoo xasuuqaan waxaa lagama maarmaan ah inaynu noqonno kuwo foojigan oo garan kara ilaa waa bini aadmi wuxuu kolley waa bini aadmi xataa haddaanad aqoon u lahayn dareen waa dareemi kartaa qofka kula jooga waa dareemi karaysaa laakiin anigu hadda saddexdaa arrimoodan sheegay midna inayna dadkaasi ayn baan aaminsanahay oo maxaa kalifay maxaa keenay in arday shir ku jirta waa xagkaan ka hadlayaa waa kii hotel shamo ka dhacday oo qalin jabin u fadhida iyaga iyo intii waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkii halkaa ku dhintay waxay ahaayeen dad qiimo sare u leh ummadda Soomaaliyeed dhakhaatiir waaweyn baa ku jirtay oo ma aha kuwii maalintaa qalin jabinayee kuwa qalin jabiyey 78 waxaan filayaa dufli iyo waqtigoodii wey ayaa ku jiray waxa ku jiray kuwa tira badan oo kolka maalinta qalin jabinay war kuwa halka intay tageen hotelka isku qarxiyay makaasa Soomaali aha makaasa muslim aha makaasa siyaasi aha oo wax raadinayay inuu siyaasad noqdo maya ma ahayn marka dadka ina leynaya dad inaga ama
laakiin mushkiladii waxay noqotay inaynaan dareenkaaba lahayn hal shay oon aad u diidanahay baa jira qabiil war walaynaan dawlo ku noqonayn qabiil sababtuna waa maxay sababtu waxa weeye qabiil dhaqan buu leeyahay ee afkaar siyaasadeed oo uu ku midaysan yahay male kolka waxa weeye ajnabi aan eheli noo ahayn oo afkaartaa wata ayaa yimid maantadan xogayaha guud ee aqalkan aan ka shaqeeyo ku-xigeenkiisii ayaa la yidhi wuu dhaawacan yahay wuu ku dhaawacmay maanta qaraxii dhacay oo digfar baa la geeyey hadda khudbo umaan iman inaan khudbo halka ka jeediyo laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaahay haynaga samirsiiyo afkaartii fiicnayde hadday wasiirada iyo guddoomiyaha iyo dhakhtarku soo jeediyeenna waa arrin dadka soomaaliyeed u taalla oo ay noqoto sidii qoysaska ay ka baxeen kuwii ay ku taamayeen ee muddada dheer bal waxa weeye waalidka soomaaliyeed ee ilmahooda waxbaraya xaaladday wax ku bareen kolka aynu fiirino waa arrin aad iyo aad u adag dhaqaale ma jirin nabadgelya ma jirin yacni waxay qoyskaasi ama waalidkaasi ay ku dhiiradaan oy hayeen ma jirto laakiin iimaankooda ayay intay kaashadaan ayay carruurtooda waxbarayeen kuwii ay sidaa kolkaa ugu soo dadaaleen kolka kuwa noocaasi intay yimaadaanun qarax isla hortaagayaan ay qarxinayaan waxa weeye waa tiraanyo weyn innaga oo isku duuban oo hal meel ka soo wada jeeda oo iskaashana un baynu kaga adkaanayna waxaan leeyahay samir iyo iimaan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan leeyahay jaamacadda banaadir waan u hambalyaynayaa waxaan leeyahay wax kale ma aha yacni haddee qaraxyadaas carruurtay soo waxbarayeen kolka sidaa loo laayo way moraal jab baa ku imanaya qofka oo jaamacaddiiba inuu iska xiro ayay imanaysa laakiin way ku mahadsan yihiin dhegumay dhigin way wadaan wayna wadi doonaan insha allaahuna waan ka guulaysan doonaa waxaa dalkeennuna wuxuu noqon doonaa dadaan ka baxno waxa aan ku jirno oo inagoo mida isku toosan aynu dawladdeenna dhisanno si fiican u dhisanno oo aynu ka baxno waxaan ku jirno aad iyo aad baad mahadsantihiin